iyo waxa muuqda kulley waxaan wada ognahay barihii dambe waxa soo kordhay dalkan sida aad ogtihiin xaalado kala duwan oo soo maray maraaxil kala duwan oo soo maray Soomaalidu waxyaabaha ay heshiiska ku yihiin waxa ugu horeeya dastuurka haddii dawladnimo laga hadlaayana waa in laga hadlaa heshiis waa in laga hadlaa dastuur haddii dastuur la ogol yahay in qof samaysto ama koox samaysatana dal ma wada jiraayo waxaan ogtiin waxyaabaha ka dhashay oo kala duwanaanta ah isla dastuurkii oo la bedelay in haddana la rabo in lagu qabto doorashooyinka dalka ka dhacaya inay one man one vote ahaadaan dhowr jeer aan ka hadalnay annaga aad aan u soo dhaweynayna laakiin marka ugu horeysa one man one vote dalkan ma ka dhici kartaa see uga dhici kartaa see noqonaysa ayadoo one man one vote laga hadlaayo haddana 4.5 in la ilaaliyo annaga sida ay nala tahay noogu muuqato marxaladda hadda lagu jiro ama dhinac siyaasadeed ama dhinac amni ama dhinaca sharciga dastuurka ilaan dastuurkii shacabkan ay ku heshiyeen oo lagu hogaaminayay waa la bedelay waxaa la samaystay dastuur khaas ah marka doorashada dhici kartaa maxay noqonaysaa waxaan aaminsanahay doorasho one man one vote iska daayay tii la yaqiinay oo hore loo soo qaban jiray inay adkaanayso in la qabto sababtuna wax kale ma aha haddaan dastuurka heshiis lagu ahayn waxyaabaha kalena heshiis lagu maaha maxaa yeele waxa kale ayaga ka dhalanayaan maalan guddiga doorashooyinka maxaa lagu beesgareeyey ma guddi kooxu samaysatay miya mase waa guddi qaran oo loo dhan yahay lagu kalsoon yahay oo doorasho qaban kara hay-adihii kale ee haddii la isku qabto doorashada garsoori lahay ma noo dhisan yihiin nooma dhisna ayib dalka hadday doorasho ka dhacayso soo ma aha dalkoo dhan inay ka dhacdo ama meesha aysan ka dhacaynin la og yahay sababta aysan uga dhacaynin ma ka wada dhici kartaa dalka oo dhan asbaabaha amniga ka sokow asbaabo siyaasi ah oo doorasho midaysan dalka aysan uga dhici karin ma jiraan hadday jiraan soo lama baahna in la xalliyo intaan doorasho laga hadlin waxaan u malaynaa markaas inuu aad u cad yahay nidaamkan hadda jooga markii uu doorashada galayay laba gruuba ka maqnayd doorashooyinka waxaa ka maqnaay Somaliland iyo al-shabaab madaxweynaha al-shabaab waxa uu dhahay ayaga lama hadlayo waa cagta la marina meesha wax ku dambeeyeen oo ogtiin Somaliland waa maqan tahay waxa raacday Puntland waxa raacday Jubaland marka doorashada la qabanayo waxa laga qabanayaa magaalada Muqdisho Baydhabo Jowhar iyo maxaan ku iraahdaa Dhuusamareeb taasoo ma abuurayso dadku inay kala tagaan oo kala irdhoobaan oo haddana isu doonidooda waqti badan lagu bixiyo haddii la rabo doorasho in la hagaajiyo oo doorashooyinkii hore wax ka fiican la sameeyo waxaa la heli karaa khiyaaraad fara badan oo dadku ay ku heshiiyaan raali lagu yahay ka fiican kowii hore ka corruption yar ka nadiifsan waa la heli karaa ma laga fikiray ma loo soo jeedaa waxyaabaha qariibka waxa waaye guddigii oo shaqaynaya in lagu sheegayo iskuullada iyo jaamacadaha dad in laga qaadayo degmooyinka la geynayo oo loo diiwaan gelinayo doorashooyin marka waxay noqonayaan doorasho koox samaysatay qola samaysatay aan loo dhamayn dalkan conflict ee ka soo kabanaya maxaa conflict cusub loo gelinaa lama